ناسو هذا ليس وين أماكن يوميها ماملكة بالشدة محمد داهر إبراهيم. متشرفة مدحوينها حزبية أول الستيت وحكلون سلام يا عقاشة باليرادة وحجرتك دمانتين وعندك السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت كدي إلهي بقى مهدله إلهي بقى المهدول نقلنا إنك تفسيين ونسكننا معنا وأنك هذا الله دنيهنا متجود يا متكارب إن هذا نقول يا إنه تشرب دنيس إسويديو وحنفي عن إن مركز تا لحساب تما أول إسويديو محاب قبستي محاب فوق بيا محاد رجينا سا هيفي عن بس أنا قلت دولية واحد جرتا عالم كفرو صعدا والحوق سنة دولة هي شعبة تقول إسكت سنة أيال الصعدا وحلقة سنة runtii waxa aan qarsoonay mantaqadan ay ku noolahay oo la yiraahdo dila oo ah meelihii dagaalada sokeeyay ay baabiyeen mar labaad iyo mar saddexaad bana ay ku noqdeen oo calaamadaheeda aad ku arkayso dhaawacyadii iyo burburkii iyo baabihii maalintii 93kii Soomaaliland hana qaaday ilaa 92kii ka soo bilow ilaa maanta wali sidii u foolxun إلهي قدر كيسة ده أنا وحبي يسكب الدليل وحن إلهي وبرينا إنه كده إلهي تويس بدي شغل سنتا كو حكومة وحن قعد سنة نابلغ قاضي ده إنه بلغ قاضي إني فلسو مدحويني كواد يد مدحوينها صدعات با وحن كلا هدلني حلا دسو مقالة ده والله دس كريان لها كرنين هداني الدولة ويتالو هين هيدا هو يردو والله أكرده كنت أخرجها نوم مقطع تصالحان يبدأ جنتا جرتا شروط وحلنا جاي جاي وحال كان خلاص جاي مكان قوة هذا النوع قوة هذا اللي وزير كي متقدم ولا شيء يوزير كده يبدأ جنتا ورا صاحب قبل كا وإنت زو قريب على يدسينا يا دول كي بحية وانو بحنا حتى إسكت داين لدسين لنا جمع قدومين دول كي انتولو يمد لما ورن دولكي نقدون سيا ما قررنا مرحلة تاس إنه عاي هيدي محلوقة شيء هو مسافة هيد مسوي عقبة به أنا أقول حنو قادر نعم مسافة قف قباهنا لما مسافة كرو تاسوا قضب ككليل بدو حويا وحنو أبنهاي إن دولكا قريها توش بنان له أي هيدا دي سيجران أما وضمي نجا ساعدية هبا يراتي واحد الهينا ما هينو وان هول قلي وان تركوبني وان دح قلي تدخل نبوق صلوي دام حد نقدح مرسان سن عدي واحد نوما قبته تاسينه ومن جرته عدة خصيصة وحن لنا أياني نقول قبلهان يقرنهان با إن مال دسان لا دسو مال دسان لا قتكو سومال لنا يا ملا واحد دون تاي إنتان عرونه أنا سلام هي العكس صارون هكذا سعيد واللي بقى يقول برا رتدي واتذا ما يشتاو تاسو حن لينهاي حنقا دوننا عريه si sareexana oo wanaagsan dadka wax loogu qabto waxaan ku darayaa jaaliyada u dhalatay gobolkan ama degmadan kuwaas amalaha la eeganaya iyaga laftooda nasiib darro ku dhacday waxaan ognahay gobolada ama degmooyinka gobolka hawda loo kala soo qaad gab waxa laga dhisay iskuul $500,000 ay ku baxday uu shaqeeya jaaliyad baa dhistay xariirad wala mid milyan iyo saayid ku baxay baa ka dhisan jaaliyad baa dhistay lugahaya sayla waa la mid boorama tuulooyinka ku wareegsanay waa la mid maxaa loo waayay $10,000 oo muuqda oo jaaliyadii u dhalatay gobolkan intay meel ku dhajeen la yiraahdo jaaliyadii baa qabatay mala qarankan iyo ummadan jirtaa oo idinka idin eeganayaan malahe idinka laftiina soo noqdaan leena oo dadkiina wax u qabta waxaan kala oo aan halkan saala ka bixinaya
degmooyinka ama gobollada meel walba waxaa ka dhisan xarumo agoomeed oo loogu tamarrucay meel dila ka agoon badanna ma naqaano oo dagaalkii sugayaaba dad iyo dunyaba baabi kama jirto runtii waxaan u mahadnaqanaa oo keliya hay-adda bisha cas la yidhaah oo xarunta caafimaadka wax ka qabatay waxa weye qofka bini aadamka wax ku qabta waa la xasuustaa waan u mahadnaqanaa cidda wax qabatay waxaan leenahay war meeshani waa laga gaabiyey hagrashadu way jirtaa baan leenahay hagrashaa jirta hagrashada ha la naga daayo qaranka waxaanu leenahay ilaa madaxweynaha maxamed maxamuud siraayo waxaan leenahay war ballantu diintay ka mid tahay madaxweyne kastaa ballan buu noo qaadaa waan dhisanaa hay-ad baan keenanaa maxay baan keenanaa buu naydhaa mar un run aan helo haddii run la heli waayo waanu cadhoonay anaguna bini aadan baan nahay waxa loo qabtaan leenahay dadka laftiisa waxaan leenahay war balan baraarugno meelaha ay waxyaal yaalaan ama meelaha wax laga doonto hadday cuqaal tahay iyo hadday salaadiin tahay iyo hadday madax tahayba war ha la tago ha loola soo xisaabtamo dadka oo waxaan u baahanay aan xaq u leenahay ha la doono ninka diidan waa la arki aan xisaabtanno dib aan iskugu noqona inaguna waxaan kusoo gabagabaynayaa biyaha mashkiladda ugu badan ee halkan taalla waa biyo waxaa jira iminka waxaaban maqlayba qofkii hadlaaba biyuunbuu ka hadlaaye cabdi badaa ilaa kontonkii hadli jire ma sidii cabdi badaa tihin baaba la ydhaa war maxaad ku aamusay haddaanad haynba adduunyada nolosha biyaha ugu adag laba ceeloo waxoogaa yaroo biya aan ka cabnaa qodnaa labadiiba way fadhiyaan maanta cid wax ka qabatay ma jirto ceel cusub baa la qoday cidi waxba kama qaban isaguna waa jiilaal baa bilowday qofka baahani dee ooyuun qofku arkabana uu ku cabanuun biyalaantu waa mid dhaba oo jirta oo na haysata waxaan leenahay cidday khusayso wasaaradda biyaha iyo hay-adaha sida unicef iyo ciddii ay khusaysiyo xukuumadda iyo wasaaradda macdinta iyo biyahaba war gurmad deg deg ah loo soo fidiyo beesha oo gurmad biyo waxa weeyaan ballayaa jirayey aan wada cabnaba xayawaanka maba kumaba jiraan waa wada faaruq taana waxaan leenahay gurmad deg dega ha loo soo fidiyo biyaha waxaa kaloo oon xasuusinanaa somalilan waxaa jirta calaamad ma garanayo si mucjiso ah u jirta waxa weeyaan waxaa ka jiraya gobolkan raashin bay WFP bixin jirtay raashinkaasi wuxuu ahaa mid la siiyo xanaanooyinka iyo iskuullada iyo dadka taagta daran sida umulaha dhammaan gobolka awdal wuu ka xidhan yahay muddo 11 bilooda waa calaamad madow oo la mariyay gobolka xukuumaddu way og tahay hay-aduhu way og yihiin waxaasi wax dadka yani lagu taakulaynayo ha ka simanahay bulshada somalilan waxaan ka hadlanaa oo aan baa ka soo jeedinanaa arrintaas sida ugu dhaqso badan xukuumadda iyo hay-aduhu baa uga soo jawaabaan haddii kale ku talagelkeega ha la caddeeyo oo ha la yidhaahdo waxaasaan ku kala duwanaa oo aan idinkuna u weydaan annaguna aanu helanaa laakiin waa wax la yaab leh oo mar kasta la isweydiiyo waxa eed ku leh oo canaan ku leh salaadiinta iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanka gobolka awdal oo aan ka hadalba iyaga laftooda dhaliil ku leh iyo maamulka iyo xukuumaddaba laakiin ma garanano waxaanan rabnaa in deg deg looga jawaabo waxaan kusoo gabagabaynayaa mar labaad baahidu ma dhammaato inta aan ka hadlanaa waa inta wax laga qabta ee muuqaal kale ee somalilanba ka muuqata sidaa darteed waxaan ku dardaarmanaa hanagu kalifina inaan nidhaano waan ka duwanahay somalilan oo layna takoore aynu takoorka qaadan mayno waan ku dagaalamana waan ku dirirana laakiin intaan halkaa aanaan gaadhin waxaan rabnaa in lanaga qanciyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu tabashada iyo ra'yiga hufan ee uu soo jeediyey haddana waxaan kusoo dhaweynaynaa caaqil xaashi ciga waaberi si uu u yidhaahdo ereyadii ugu habboona waxaan jirin ma kuma fiicna dee ama cid maamul lagu cambaareeyo ama lagu ceebeeyo ama cid deegaanba lagu hayo waqti kuma fiicna kulley anu sidaan aaminsanahay maalintii ugu dambeysay halkan loo yimaado 3 wasiir iyo bara saabku sida maxamed ba xusay waxay ahayd halka aan joogno waxaan kaga hadlay kolka magaca inta baabiisay maxay ahayd waa la isweydiintay
يعني وسيركي جوجو عن قبل ها ده واحد بعد يصير دولة ده بعد يصير دولة حسب جماعة الجيرة بابيتي وحنا اللي وعصي واللي بقى حن سيقص كنا محمد شيراي مدحوينها الصومال لين ما مدحوينه قدومية أيوكا عندي بابيسيتي واش يعني وعبشة كده كاريتي إما كنا وحويان كل واحد قبل سلا كلام أنا كل سؤال أنت ما مرين أنت إذا بدل لكن واحد أمثلة دي أما إذا حاجة بابين تأمل ماشي كوباي أما هي ماشي إلا بعض أهيد لكن لما بس تحدي يعني جري المغرب حدي أي ماشي إلا بعض تكتو مروجيح بقى ماشي كوباي تقني لكن أنا حطينا إيه ماشي كوباي أهيد جبت حاجة على ماشي كل كان أساسا وقبنا وعن كل دولة وين تهذا وأنا الشيء وطني فورمي يو حريري نفسي وأنا ذي سمعني وأروى سمعني ذي كله أنا بلوضة يقول أنا خشيت عليه بس الدواء أوضح يعني جديد بقى جدي ده عضوان مغلا وده أودو إلى كوان مغلا إلا عرورة هجا يجير بالله على الدولار كذا ولا يدنا مخير يعني واحد سوى مقتدين بانا نكون لكن واحد جعلنا وحقبت كتير يعني الصومال لأنه ما هيضو أما دولة دبي إننا ده كتير له ونكرح مقارنة ما نجعله كل الدولة ده أنت واحد مقطع عليها دي بدأ جدا وين سلوكسين وقت لي دوي الشهادة دي بدأ جدا وسيرين أقبل سلوكسين وحنا جرا وح أمة الدلة دي تواتر أمس ديت الواحد أي كاسة يروح يدور تناشر وحبا إننا إنه قبل إنه واش شكلي ما عنده وجهة دي واحد كده يسري صدق بقول كل بالله كده سيار يسري إنه ده ما تابع مودي ما كانوا حق كاس الله سعرنا حوالي كسر السيار إنه جتني إذا من مودي دلا واحد أول واحد كتب بيا أنت أنا فادي كريست وعلنا وحقبت بانو ربنا والدولة وحقبت بانو كربنا وحقبت بانو ربنا وحقبت بانو ربنا وحا موقضي وحلا قبطان والدولة كو ودجيتي وانو ربنا وعمد وضب كلابات بيها halka ceel bayaan ceel baba la qoray nama afo kuwaas biyana waa qabnaa saddex bulan banay 10 kilomitir dila lafteeda kala xiran oo weli aan isku socotay dila lafteeda isku socotay waxaan kala xidhantay jid la'aantii jidadkan wax laga qabtana waano كل الغرب استعاد بنية غرب كافر وحوي دولة ده وحيوب بدنا نقول أصحابها إنه بركوا كنا عناوين جيران يعني حسبية ده حيوب بدنا نقول كنا عناوين جيران عن خلال كائن لكن حساب تاني وحقبت وين الدولة أنت أنا وكل حزب الدولة تكون معارضة ديارو بي لكن واحد الدولة وحقبت باهي ده يدرس كذا كذا سيدا أساسا كنا نعمل كله واحد جرا مدحوينا جمهورية الصومال محمد شيراي ما كل حزب يكون جرا حوالي في كتير واللي ما ناشر كان حسوق وين أنا تروح الصومال لين حسوق كان شو وين أنا تروح وأكون حوالي حتى أنا الصوفة كنت دوني مين waxaanu ka jecelnahay midnimada isku tiirsanaanta nabadgelyada iyo wax kale ka jecelnahay habashooyinka inaas aan soo gudbinaynaa waxaanu codsanaynaa dawladda ama hay'adda noo keen ama iyadoo wax qabad noo yeelatay in wax la noo qabtaa doonayna ilaa ka ugu hooseeya oo gudoomiye degmo ah ilaa madaxweynaha inta u dhaxaysa ama hay'ad la gaashato ama iyadoo wax qabad baan doonaa baahidayada إنه إحنا وقت الدنيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحوي مقعي وسلطان عبد الرحمن حسين بله مرت الشرف تا يوم الحوينا داود الستيد
iyo fuqaasha iyo dhalinyarada dhammaan waan soo dhaweynaya anuu laba qodob baan ka hadlaya waxa weeye saamigaa ka hadlaya dowladda Soomaaliya iyo waxaasi waxa weeye jamhuuriyadda Soomaaliland 25 wasaaradood wey 1% kumay waxaa jira 275 agaasime maamul baa jiro wasaarada ka shaqeeya 3 kumay wasaaradda caafimaadka ee inta le hal agaasime kumay wasaaradda arrimaha gudaha oo wasaaradda ugu ballaaran hal agaasime kumay oo intaas gobolladii degmooyinkii daakhiligii oo dhan waxaan ku leenahay ma jirto saraakiil waxa weeye jamhuuriyadda Soomaaliya haddii beesha dhexe ay qaadato 7% ee 30% ay helaan beeraha fuqaarayaasha bay wasiirkaygu waa iiwey wasaarad macna leh looma dhiibin taasina waxa weeye wasaaradu way kala qaybsan yihiin oo A iyo B iyo C weliba qaar baa laga bedelo beela kale lis taasina wax macquul ah ma haddana Soomaaliland baa sidaa ku ahay oo u jecel oo saraakiishayadii ku dhimatay oo hadda ilaa hadda ay ku jiraan inamadayadii ay buuhoodla iyo sanaa iyo soor fadhiyaan oo ay ilaalinayaan waxa weeye degmooyinka burburayna ka mid baa 5,000 oo guri bay Japan bixisay waxaan 500 uga weynay geesaha habeenkii baa laga doondoonaa yaa guri isku qoraya oo ku dhisnaa anaguna meelaan hoos galaan baa taasina wax macquul ah maaha madaxweynaha awdal state siyaasadda nabadgelyada ee uu leeyahay ee uu qaranka uu leeyahay ee qorigii uu iska dhigay waanu ku taageersanaa xuquuqda iyadu ku jirto inuu raadiyana waanu ku taageersanaa biyahan iyo waxan inaga aqoon dawladdeenu ka qatanay wasaaradda qoysku maxay waxaa loo diiday wasaaradda maaliyadda wasaaradda caafimaadka wasaaradda arrimaha gudaha warmaanaan geyin ciddii soo iminkaan anagu dagaalano intaasoo 100 baa nagaga dhintay difaacii Soomaaliya mujaahid baan ahay waxba ku waayi maayo anaa hadda mujaahid ninkii Soomaaliland ka hor yimaadana ninka ugu horeynaya aniga wey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaalilandna waa salaamaya waxaan leeyahay maxaa lagu weynay golayaasha guurtiga maxaa lagu weynay golaha baarlamaanka maxaa lagu weynay waxaan isaaq isdul dhigay wax ayagii weynay iyo wixii sireeso شلنا عيدك وعيكم أنت سجال تري بوتا أيوه غير دليلي وريك سعد يوصل عليه مثلا مركا أول صوب قابل إياه مركا نتشعل هاي جمهورية الصومال اللي تبتين كي نتشعل هاي عيد كستا قال وبدأ جمهورية دوان نتشعل دفاعي قلت لي 4 لكن سامي قال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمود على عليه الصلاة والسلام. أمان المينها وضياش وقاش وشيخضة عبد الرشيد وعهل الموضوع مرتين توهم في الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل يعني عبد الرشيد وين كلمي كل يوم نقصد ويني ما تنسوا وانا معنا سومالنا بان هنا وين هم هنا سومالي كلمي روحنا نقول ولا بدون المجال اللي دلوقتي كل إن بدن بلغت الواجب وحيد بحياة سياسة تحقق ما يعمل ويا وحنا وحيد ما رتي تتكلم عن طنقة إن بدن بلغت صاحبه ضد كنا يمكن الدولة بأذين يعني أنا وحنا لا وحنا أذين يعني ضد كبيرة ولا شيء أن دورني واحد رجب بلعبه حل بعني ديني ويخوفي رجب بلعبه عشان دورني ما دركتين إنه ما بقى رجب حركين مريض ضد كان يحل بعني الله وخبرته هدي أن إلا لا نحيف معركته يعني هذا نذكر هذا القاضي أنت ويرحي تابع صوتين أو يحيي إنه مضح وحي إنه مضح 10 سنة مع مدحويل عهد كان مريو
waxa la yidhi waad wanaagsan tuun dhaha wuu wanaagsan yahay laakiin wax waa la weydiisan dii yaa wax la weydiisanayn waxa la yidhi raggeena laayena waa noo soo qabatay mid lama soo qaban kuma la soo qabtay mid lama soo qaban mid magaaladana ma indira wadaraytano magaalo kasta oo gobol ambulance bay leedahay ambulance ka u naqande ninka miskiinka islaantiisa bukoota amil misbuuq oo kala istaabaa ma kala baawo ku bixin mise dhaqtar ku bixin ummadda waxa loo bisha casi inama wada gaari karta iyadu qaab gaaray qaabilsan tahay ambulance degmadu leedahay raba ambulance booliisku baabuur male ninka nin soo dacweeya baabuur buu kala istaa waxa la yiraahdo qof aad soo dacweysa kaaga inuu qofka diluu ku doonayo qofku baabuurka kirada qabsato حاول كذا كأني أقول بوصل دعوة مسكينة مجالين من ملاها أكسر لما تقول واربعون يقول بحب بوليس كانوا كانوا واربعة أمبلس لأنه كانوا أول دكتور حنا ضايع المويه دكتور بيجيبوك بدلي أول عبد الرشيد واحد تعالي قرب جوجي في هذا متعلمين في هذا ما حد دكتور ينودي هذا الدولة كانوا ولدي ما حاول دي قرب جوج تاني أنا دكتورين هنا نصبوا وقال زين بالله لا تايح دقام ما تايح بالله لسه يا دقناي halkaaba la dhigay dhaxta yaa dhisde dawladda Soomaaliland biyaha waxa ka celisaa wajaale agoomaha wajaale laga celiyaa kolka in yar loo soo gaadhaan wajaale laga celinaya raashinka wajaale laga celiyaa dadka waaweyn masaakiinta dhulka bariga raashin bay qaataan halka raashin laguma qaato waxa jira dumar agoomo meelaan odaygoogii maalintii la dilay ina keegi la dilay ayaa raashin siinaya meel laba haba yaraatay halkan kuma tirsana waxaan leenahay dawladda Soomaaliland waa cid walba cad bay ku leedahay dawladda cadka iyaga aw qurba joogteeda aw madaxdii reer dalal aw xildhibaanadii la doortay hal qof xildhibaan la doortay inuu dadka uga hadlay waxana naga maqan ma naga oran waxana naga maqan moodayga miskiinka arigiisa agana oran maxaa naga maqan waa inay kuwa dawladda ku jira iyo xildhibaanadu dhan dadka waxana ka maqan wixii naga maqan arabka lagu wada dhistay waxa weey dawladda afkeega aan ka helno annaguna waajibkeega aan ka soo baxnay shicibnimo in dawladda ay nagu leedahay sawtaan ma waxaan leeyahay abdirashiid warrankii waa maaragtay dadkaagu kulli wada Soomaaliland waxay ka yar cabanayaan wixii Soomaaliland ku dhacay baan ka helida raadkii sigadu ma lagu qaadaa wala naafa xagga wax la geeyay ma naqaan la geeyay wax xaggana waa loo yaqaan hadda qurba joogtii hadda mutacalimiinteedii wixii aan doonayna la doon hadda la warku wuxuu ku leeyahay wixii degmada ay u baahan tahay ilaa wax barasho ilaa caafimaad ilaa biyo ilaa dibudhis وبركاته waxaan ku soo dhaweynaya waxaan salaamaya madaxweynaha Odo State iyo guurtida iyo aqaasha sharafta leh isku timiday maanta fadhiga taas waa salaatigu talabaad waxa halkan laga hadlayaa waxa weeyaan war Somaliland wala wadiya waxa dadku ay doonayaan wax kale ma oo damac ma aha oo matqaana waxayna lahayn ma doonayaan war si wixii aan wada lahaano in wax yagiina la nasiyo wixii kale ninkii oo mataqaana taasi ma hadlayaan la foogo kaliya gobol baan ahay gobolka Awdaleyda oo ka tirsan Somaliland oo dib iyo deefba waajib ay tahay inuu la yeesho Somaliland laakiin waxa muuqata dibtii inuu leeyahay laakiin deeftii ay meel gaar ah tahay tan maanta aanu taaganahay ee ku garab joogno madaxweynaha Odo State ee aan ku nahay Odo State maanta halka aan joogno waxa weeyaan war wixii xaq ah ee aan leenahay baadil ma doonaynaa annaguna cabanay hala nasiyo si aan u wada yeelano wadankii oo aan uga sinaano dad iyo dheef labada taasi ka hadlibaayeen badan oo suldaanka hore sheego soo gabagabeeyay ilaahay khayr siiye talabaad waxa weeyaan war anu waxaan mas'uuliyadda inteeda badan saaraya waxaan inaga maqani inna waxay ku maqan tahay xagga dawladda inna waxay ku maqan tahay inaga lagu maqanto dadkii mas'uuliyadda inaga noo aha ee namatalay ay ahayd inay sheegaan wixii aan tabanayna iyo duruufta jirta ayaa waxay noqdeen dad iyagu aragtidoodii ay noqotay dan gaar taan waxaan soo qaadanaya daliil ahaan maalintii waan joogay halkan la yiri 200 guri baa la keenaya 200 guri ee la keenayo waxba kama jiraan
ujeedada laga lahaana anigu shakhsi ahaan waxaan u arkay inay tahay maalintii golaha wadatashigu ay soo baxeen in la cambaareeyo la caayo intaa unbay muhiimadda meesha ku jirta taasina waxay noqonaysaa wax meel lagaga dhacay sharafta dadka ummaddu sharaf bay leedahay oo ilaahay baa karaameeyadii in meel lagaga dhacana maaha oo dan yaroo gaara oo shakhsiya lagu awkacsanayo oo iyo lagaga qaysiyo la yidhahdo dan baa laydin hayaa oo baahidoodii laga faa'iidsanayo duruufta iyaga haysay haddana mataqaana markay dadkii laga fushado sidii la baran laga yeelo war ilaahay wuu idinku qabsanaya hadday noqoto wasiirada hadday noqoto mas-uuliyiinta hadday noqoto xildhibaanada golaha guurtiga war ilaahay ka baqa oo ummadaasi sidii ay idiin dooratay si daacadnimo ah oo ha ku ciyaarin oo mataqaana sharaftooda iyo mataqaana dadnimadooda meel ha kaga dhicina waana ka baxaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal maasha salaadiinta culimaadudiinka dhalinyarada waxgaradka dhammaan aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa waqtigiina qaaliga ah ee aad maanta usoo hurteen in aynu samayno isxog waraysi maadaama dalka muddo badan aan ka maqnay idinkuna aad tihiin dadkii nativeka ahaa yani muwaadiniintii deganaa degmada dila iyo hareeraheeda inaynu isxog waraysano oo aan ka wada hadallo danta caamka ah ee bulshada taas oo laga maarmaan u ah jiritaanka ummadeenna hooyooyinkeenna caruurtooda iyo caruurahay dhali doonaan aad bay farxad weyn ugu tahay maanta shirka halkan inaan ku qabanno waa dugsigii hoose dhexe ee dila weyn oo ahaa goobtii layga qoray iskuulka ama farbarashada walaalayaal ummaddu ilaa ay maaragtay muxuu ahaa iyadu karaamadeeda ilaaliso cid kale karaamadooda ma ilaaliso qof kasta wuxuu mas-uul ka yahay inuu isagu ilaaliyo karaamadiisa karaamadaada markaad ilaaliso ayaad helaysaa in karaamadaada la ilaaliyo karaamadaada haddaad dullayso cid walba karaamadaada way dullayn doontaa maanta wayna dhegaystay cabashooyin aada u badan xuquuqo aada u badan baad ka hadasheen waa dareenkii iyo wixii anagu baan aaminsanayn wey runta marka laga hadlo tii ayaad maaragtay aada sii xaqiijisaa markaa diyaar baanu ahay inaan idinla shaqayno goob kasta iyo meel kasta oo xaqiinu galo inaan ka daba gallo annaga oo rabitaankiina magaranaysaa ku shaqaynayna haddii aanu joogno dalka gudihiisa iyo haddii aan joogno dalka dibaddiisa labada wajib baan ka saa biyaha waa run cabdi badaalo naxariistay markii ulada la noqorayay maanta cirra ay u taalo maalintii ulada la noqorayay biyaha un baa laga hadlayay waa si uu sheegay wey maxamed weyne dhibaatadu markay timaado waa in xalkeedii lala yimaado mandaqadan ma garanaysaa ee degmadan ee dila de waxay leedahay golo baarlamaan dad uga wakiilaa jiro baarlamaanada fadhiya siyaasiyiin baa jira kasoo jeeda deegaanada cabashooyinkan iyo dhibaatooyinkan faraha badan ead ka hadlaysaan iyaga ayay haayeen inay xal u raadiyaan xaqiiqada marka laga hadla iyaga ayaan shaqadoodii qaban haddayna shaqadoodii qaban idinkuna khalad guud bay inagu nu leenahay war qofka aan rabitaankiina ku shaqaynayn qofka aan dantiina aan ka turjumayn qofka markay qoday xukmuddo isagana aanay mudaynin codkiina inaad siisaan may hayn waxay codkiina inaad siisaan qofka inila dareenka ah qofka xildhibaan noqonaya ama wasiir noqonaya 90 kilomitir bay noo jirtaa ama ka yar Hargeysa waa inuu deegaanka ku noolaado uu degan yahay wey oo hadday biyo go-an yihiin hadday jidxuma jirto hadday caanuhu magaranaysaa go-aan ama ay xooluhu guraan hadday beeruhu ba-aan ay soo bixi waayaan dibta dadka waa inuu la qaybsado si uu la qaybsado waa inuu bulshadiisii uu ku dhex noolaado halkaasuu ka helayaa dareenka bulshada iyo oo weliba isagana saamaynaysa marka waxaan ugu dardaaraya walaalahayow codkiinu waa gold waa dahab weyn ha siinayna codkiina qof aan dareenkiina aan ku shaqaynaynin taas waa iga dardaaran reer daraado taa haddii intaan kaga gudbo walaalayaal anagu
safar baan ayaan soo galay aada u dheer waad ogeydeen maamul iyo institution baanu ka abuuray dibadda Awdal State Awdal State iyo Somaliland wada hadal ayaa uga furmay dalka dibaddiisa magaalada Dubai Imaaraadka Carabta wada hadallo aad u adag baana dhex maray wada hadalladaasi waxay ka koobnaayeen 15 qodob oo halkaa ku qoran waa wada hadalladina dhex maray Awdal State iyo Somaliland waa 15 qodob weey 15 qodob dhammaantood waxay ka turjumayaan tanta shacabka reer Awdal ama ha ku noolaadaan Gabiley ama ha ku noolaadaan Awdal ama ha ku noolaadaan magaranaysaa Somaliland guud ahaan Selaland idhaahdo marka heshiisyadaasi qaarkood waxa weeye waan isla fahnay oo waan isla garanay in la fuliyo oo ay ka mid tahay maaragtay muxuu ahaa dekada Luqaya in la dhiso oo shacabka loo furo meel ay waxna ka dhoofiyaan waxna ay kala soo degaan qodobo kale oo aan isla waafaqnay way jireen kuwa kale oo aan isku afkaran weynay oo aan ku heshiinay dalka gudihiisa inaan kaga wada hadalno iyaguna way jireen marka walaalayaal waxa aan ku shaqeynaa waxa weeye wadantii caamkeeda shacabka reer Awdal dalka gudihiisa dibaddiisa qof kasta meesha uu ku noolaado heshiisyadaasi waxay u baahan yihiin in wixii dhimanna maaragtay muxuu ahaa isoo qaba la fuliyo wixii dhimanna in la sii wado wixii lagu heshiiyeyna maaragtay muxuu ahaa in la fuliyo fulinteeduna waxay ku xidhan tahay idinka ayay ku xidhan tahay idinku haddaydaan waxba doonayn waxaan ku soo heshiiyeyna fuli maayaan wixii laga sii wada hadlayayna shaqadeeda qabsoomi mayso idinka ayay idinku xidhan tahay intiina maanta halka fadhida iyo inta shacabka reer Awdal ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa magaranaysaa ku maqan maanta waxaanu nahay shacab reer Somaliland ayaanu nahay mandaqadii ilaahay baa nagu abuuray waxaa loo baahan yahay markaa inaynu wada shaqayno inaynu midnimada xoojino haddaynu nahay shacabkii reer Awdal iyo haddii leeyahay shacabkii Somaliland guud ahaan midnimada ayaan wax ku noqonaynaa ama meel kore ha ahaato ama meel hooseba ha ahaato walaalayaal midnimada adkeeya isjacaylka adkeeya isdhegaysiga adkeeya waxa inaad wax doonaysaan adkeeya waxaad doonaysaanna ku adkaada waxaa laga maarmaan ah in nabadgelyadu waa qaali weyn qof kasta mas'uul buu ka yahay nabadda waa nabadda wiil baa ku dhinto laakiin wiil kuma dhasho waa maamaha Soomaaliyeed weyn waxaynu wada ogsoonahay degmada Dilo aynu aragnaa maanta xaalkeedu siduu yahay waxay u baahan tahay dib u dhis u baahan tahay waad ka hadasheen hay'adaha mas'uulka ka ah hadday biyo tahay hadday dib u dhisin tahay haddii ay tahay food programskan carruurta maaragtay muddada 12 bilood aad cadayseen inay ka maqan yihiin ana runtii waxa weeye waa wax aad iyo aad looga xishooda weeye dadkii mas'uuliyadda lahaana waxa weeye in lagala xisaabtamo si sharciga waafaqsan weeye xaqada marka laga hadlo laakiin maxaa loo baahan yahay inaad idinku hadashaan oo istaagtaan oo xaqiina si sharciga waafaqsan aad ugu dagaalantaan walaalayaal idinka ayaa laydinka baahan yahay haddaad tihiin shacabkii reer Awdal gaar ahaan maanta intayna halka wada fadhina ee ka soo jeeda degmooyinka Dila waxaa xusid mudan oo mar walba aad aan u dareemayaa nabadgelyadu waxay u baahan tahay in laga shaqeeyo u baahan tahay waxaynu wada ogsoonahay in Soomaaliya iyo Somaliland ay wada hadallo u socdeen muddo dheer way wada hadalaasi socdeen annagoo ka soo horjeedna Somaliland oo taageersan Soomaaliyeed way wada hadalladii bilaabeen haddana anagoo mowqifkeygii bedelay wada hadalladii way socdaan markaa shacabka reer Somaliland meel kasta ay joogaanba waxa aan wargelinayaa wada hadallada u dhaxeeya Soomaaliya iyo Somaliland waxaa ka muhiimsan in horta meel la dhigo wada hadallada u dhaxeeya Awdal State iyo Somaliland taas ayaan qabaa walaalahay idinkana waxaan idinka rabnaa taageeradiina taa intaa haddaan kaga gudbo waxaan hadalkayga kusoo gabagabeynayaa waxa weeye adduunyada dimuqraadiyad baa ka jirta dimuqraadiyad baa dunida ka jirta
qof walba xaq wuxuu leeyahay wuxuu aaminsan yahay dadka inuu soo bandhigo in laga cadhoodana maaha in wax fasal laga sheegana maaha marka dadkeena guud ahaan waxaan usoo jeedinayaa qof waliba wuxuu aaminsan yahay fikirkiisa bulshada inuu soo bandhigo taas ayaa midho dhalaysa taas ayaa faa'iido keenaysa taas ayaa lagu hormarayaa taas ayaa xalinaysa dhibaatooyinkan faraha badan ee qarsoon ee maanta maaragtay muxuu aad ka dhawaajinaysiin waqtigu aad buu inoogu kaaban yahay qurba jooga ree awdal meel kastay joogaan dalkiini iyo dadkiini wuu idiin baahan yahay siday wada dhaqameedyada iyo dhallinyaraduba ay ka dhawaajiyeen horumarka dalka iyo kobcinta nolosha dadka iyo kobcinta nabadgelyada intaba ha laga soo qayb qaata ayaan ku leeyahay qurba joogana dadka gudaha ku noolina haani guntay ka tolan tahay haddaydaan idinku waxba qabsanin cid kale waxba idin qaban mayso idinku hortas ma garanaysaa seeska soo bilaaba iyadna taageero waad ka helaysaan ha noqoto dowlad iyo ha noqoto maaragtay muxuu ahaa dibad joog labadaba aad iyo aad baad mahadsantihiin waan ku faraxsanahay maanta maaragtay sida fiican aad fikirkiina u dhiibateen sidaad noo soo dhaweyseen aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi